waxaa su'aal isweydiin leh oo inaan isweydiinno mudan aaway ururadii dawliga ah aaway UN aaway munadamaadkii dawliga ah aaway dadkii wax yar markay meel ka dhacaan qayliyi jiray oo kici jiray oo madaafiicda kicin jiray oo ciidamada diri jiray oo cir iyo dhulba weerari jiray aaway naam jawaabtu way fududahay kiiska iyo qadiyada waxay khusaysaa muslimiin marka dayaarada iyo dabaabada iyo sawaariikh iyo gantaalo la kicinayana waa markii kiisku uu kirishtan khuseeyo way xaqiiqadu taas iyada way alkayl bimikyalayn habar cajuuzad ah oo reer galbeed ah meel haddii wax lagu yeelaayo adduunka dhan waa kacaya qaylada iyo buuqa iyo qajjacda laakiin waxa weeye shacab kaamilihi haddii la baabi'iyo marmarka qaarkood baad waxaad maqlaysaa hadal iyo idaane iyo eedayn iyo leesh laana kiiska muslimiin khuseeya inaan fahanno waaqica iyo wadcigu siduu wax u jira waa laga maarmaan xaqaa'iqdana inay inoo caddahay waa laga tabari meelayna dhigto meesheeda waay laakiin inaan nala khidaacin oo nala khaldin waa laga maarmaan waajib ala kulli muslim inuu tijaaha walaalihi qadaayaadka muslimiinta inuu dareenkeeda lahaado waa laga maarmaan sida marka kadibna wixii uu kari kara inuu qabto maxaad qaban kartaa waxa ugu yar dareenka qalbiga la wadaag xanuunso walaysa waraa dalika habatu khardal min iimaan waxaan la yaabay way soo carareen doomay ku soo carareen dil iyo baaba bay ka soo qaxeen doomo bidaa'i ah oo shiraaca bay badweyntaad aragta ku soo mareen maaliishiya yimaadeen xuduudda laga xidhay badii baa dib loogu celiyay waa dal muslim ah indunuusiya yimaadeen ayagoo qax ah xuduuddii baa laga xidho markaas dib loo masaafuriyo badda dib loogu sayray waa dal muslim ah dawladihii muslimiinta gudahoodii baa isku mashquulsan midan riix iyo tan riix iyo waxba iga maqan madaxdoodii taraf bay ka bixi laayeen waxaad moodaa kaliya inay yaqaanaan sida shucuubtooda xabsiyada loogu guray loo cadaadiyo gaaladana loogu tartamo jacaylkooda sidii loo kasban lahaa oo loo gaari lahaa axmayqiyada reer galbeedka ka taliya sidii ay u kasban lahaayeen baa tartan loogu jira oo xoolaha lagu bixinaya midba midka kale uga dhowaan lahaa xaaladda noocaas oo kale waa dadkii muslimiinta matalayay waay xanuun aad u fara badan waay arrin aad looga xanuunsado way sidaas daraaddeed dareenkeeda inaad qabto dadka walaalaha ee dhiban meelay ku dhiban yihiinba waa laga maarmaan xanuunkaasi inuu ku hayo haddii qalbigaaga iimaan ku jiro waay xanuunka kadibna ha ku gaabsanina waxaad qaban karto qabo wax ka yarna ma jiro inaynu qabanno inaynu u ducayno oo aad salaada ugu ducayso oo aad kaliga u ducayso oo si jamaaci loogu duceeyo oo muslimiinta in dhibka ilaahay maanta ka qaado iskaashigan buudiyadii hunduuskii nasaaradii yahuudii kulli ay isugu tageen oo meel walba qadaayaadkoodu ku dulman yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ma uusan dulminin laakiin waxaynu ogaanaynaa innaga ayaa halkaa isdhignay sababta inteeda badanna innaga inaga socotaa waxayna ka timid markaan ilaahay diinkiisa iyo mastarkii xooggii iyo quwada ka tagnay oon ka jeedsannay oon kala googo'nay oon qabyaalad door bidnay oon wadaniyo door bidnay oo aan isqaybinnay oo aan nasab wax ku salaynay oo ay soo baxday qowmiyaad beddelkii islaamkii mudaynaya muslimiinta markaasaa ilaahay sunankiisa wuxuu noqday horayna u socday haddana jira iimaanna doono sunan aan cidna muxaabaad u samaynin waaye ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ina dulleeyo way marka dulligana la qaadi maayo waa ka sii daraya waa sii adkaanaysaa ilaa ummadani ay garawsato meeshay ka khaldantay iyo meesha laga gaadhay oo ah ilaahay diinkiisii inay ka fogaatay kitaabkiisii qawaaniin bay ku bedelatay reer galbeed dejiyay ayay maxkamadaha dhigteen markaasay ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nebi maxamed meesha iska dhigeen gaalay u kala tartamayaan oo ninka kaleeto uu doonayaa inuu uga dhowaado
ilaahay kitaabkiisii quraanka ahana meel buu saaray qadiyada iyada ah heerka markay gaadhay muslimiinta iyagina isku mashquuleen gaaladiina ay qaabka ciziga iyo karaamada iyo weynaynta u sameeyeen walaalahoodna ay fududaysteen dhiigii dhexdoodiina si fudud ay u daadinayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku saliday cadow shisheeye abuu ku saliday waana sunno ilaahay tabaaraka wa tacaala si kastoy tahayba qadaayaadka muslimiinta iyo meel walbo dhibkoodu ka jiro ama maxalli ha noqdo ama caalami ha noqde waa inay ku xanuujiso wixii tabartaada ana waa inaad ka qayb qaadato waajibka ina saaran ka isaga awey sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin